السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والسلامتين دمان أصحابتنا هودا ku saaxiibnay maanta waxaan idin wadaa film kale oo cusub oo xiiso badan magaciisana shaashada idin soo saaraya filmkeena quruxda badan qisidiisa waxay ku bilaabanaysaa sida tan nin dhalinyaro dabeecad qalabsanaya wuxuu ku waalnaa gabdhaha quruxda badan wuxuuna go'aan ku gaaray inuu guursado si uu xakameeyo ama u jirdilo si wanaag gabadhaas ninkii markii ay guursatay kadib waxay isku bedeshay ruuxaantaas oo ku libisan dharka arooska dhiiga cas ugu dambeyntiina hadafku waxa uu noqday dil haddii aad rabto inaad ogaato filmkan ku saabsan ruuxaanta dharka cas iyo geesiyaashii badbaadiyeen ruuxaantii masaakiinta ahayd ee maskaxda qaloocatay waa tahay fadlan haddii aad naga mid ahayn maanta nagu soo bir gudagalna qisadeena ayadoo habeenimo saqda dhaxaytaan ruushaan oo cararaya weliba ninkan asagoo cabsi badan ka muuqata weliba qori wato weliba qori duuga ayuu meel wuxuu soo galay madxafkaasna wuxuu ahaa madxaf mugdi ah cidna maysan joogin oo cidla ayuu ahaa ninkii eeshiyaanka ahaa ayaa wuxuu u hadlay si argagax leh wuxuuna weydiiyey ninka hortiisa taagan cidda uu yahay ninkii odayga ahaa oo cabsida ka muuqata ayaa wuxuu yidhi waxaad ku jirtaa madxafkii inkaarnaa oo weliba mugdiga ahaa ninkii odayga ah hadalkaas markuu dhahayay xaqiiqatan cabsi badan ayaa ka muuqatay wiilal fara badanna waa uu ku beernaa asigoo cabsidaas ka muuqata ayaa wuxuu u sheegay in uu leeyahay makiinad habaaran ninkii odayga ahaa cabsi darteed hadalka xataa waa uu dhammaystiri ninkii mugdiga taagnaa ayaa wuxuu ugu jawaabay ninkii odayga ahaa hadallo kulkulul oo weliba cabsi gelinaya asaga ninkan madxafkii habaarnaa jooga markii ugu horeysay uu u jawaabay qof bini'aadan markaasaa wuxuu ku yidhi ruuxaantii gaduudneed ayaan ahay gabar qaylideeda ayuu maqlayaa odaygii markaas kadibna meesha uu isaga cararaya ninkii meesha tagnaa wuxuu arkayaa odaygoo sii cararaya kadibna wuxuu fiirinayaa mashiinkii dhulka yaala ninkii markuu mashiinkii arko waxaa ku soo dhacaysa amaba uu ku fikiraya inuu asagana wax qoro bunna ayaa ku xadgudbaya ardaydii si lama filaan wuxuu u arkayaa asagoo ninkan qaylinaya asagoo meesha iska fadhiyo oo la yaaban saaxiibkiisa waxaa dhacday si lama filaan halkaas inuu ugu yimaado markaas kadibna wax badan ma uusan la sii murmin wuxuuna go'aansaday halkaas inuu isaga tago balse wuxuu ogaaday meeshan sir inay ku dugan tahay macaamiil qurux badan ayaa markaas imaaday markaas kadibna waa uu baxay si uu u keeno kafaygu asiga lahaa wuxuu damcay inuu wax u sheego balse nasiib wanaag maamula ayaa kasoo dhexgalay hadalka asiga u wada waa uu la hadlay wuxuuna u sheegay labadooda meesha inuu ka saaro waa uu istaagay waxaana markaas kadib uu ku fikiray macaamiilka meesha fadhiya inuu kafayga u keeno midaan waxay caddaan u tahay maalintii ugu dambeysay in ay tahay maalinta qofka macaamiilka meesha fadhiya in kafayga loo geeyo ay muhiimaddu ay tahay in badan waa uu murmay in badanna meesha muran ayaa ka dhacay markaas kadibna ninkii macaamiilka meesha fadhiyay wuxuu sameeyey kaarka ayuu soo saaray kadibna miiska ayuu saaray wuxuuna weydiiyey gon ayaguna markay kaarka arkeen waa ay la yaaban yihiin meesha wax ka socda iyo ninkan ficilada uu samaynayo markaas kadibna kaarkii ayuu qabanaya waa uu eegaya markaasuu leeyahay waxaan rabaa inaad igala shaqayso madxafkii ninkaana weliba isagoo ka qomameynaya nasiib wanaag gun waa uu diiday sababtoo ah wuxuu yidhi aniga waxaan qabanaya ama madxafkaas wuxuu ku saabsan anigoonan ogeyn arrintan lagama yaabo inaan aqbalo ninkii macaamiilkaa meesha fadhiyey waxa uu sheegay in uu leeyahay awood uusan asaga ogeynba hadalka intuusan dhammaanin gun waxa uu ogaaday saaxiibkii in uu xad lacagtay marka uu damcayna kafayga in uu shubo ayuu garaacay kadibna meeshiina waxaa ka dhacay dagaal aad iyo aad u ballaaran meeshiina gacanqaad fara badan ayaa ka dhacay gacanqaadkaasna wuxuu gaaray baheer buuqoo dhaliy kadibna furo ayuu usoo taagaya furaha ayuu ninkan qabanaya kadibna meel kale asxaabtiis taagan ayuu fura usoo tuura furahay qabanayaan mooto ay qaadanayaan wuu kasoo daba cararaya markaas kadibna waxaa dhacdaba si toosa inuu u bursado laakiin nasiib wanaag waa uu gaaro weynaa kadibna kaarkii ayuu soo qaadaya kaarkii markuu soo qaado waa uu eegaya wuxuuna arkayaa calaamado ama naqshado meesha ku yaala naqshadii ayuu dib ugu noqonayaa kadibna wuxuu ogaanayaa in meeshan ay ku jirto sir fara badan habeenkii waa uu seexaweynayaa wax kasta ayuu samaynayaa naftiisa ayuu caroonayaa wuxuuna isweydiinayaa sababta uu diida ugu aqbali waayo kun kafeterigan wuxuu ka shaqeynaya ku dhawaad 7 ilaa 8 bilood ana nin shaqadan marar badan yaqaana ama xirfadeeda leh laakiin nasiib wanaag markuu arkay jaaniskan ama wuxuu is yiri maxaa adiga kugu kalifay inaad fursadan dahabiga aad dayacdo laakiin haddana wuxuu is leeyahay ninkan gun la yiraahdo madxafkaas hadii aad ka shaqayso soo lagama yaabo adiga dhibaato inay kaaga timaado gun habeenkii wuu soo xabeeraya wuxuuna imaanaya meel mandara weliba asigoo arrimaha oo ku soo noqonaya maskaxdiisa oo ka qoomameenaya haddana in badan waxa ay u imaanaysa naag meesha taagan kadib yeelada sii jeeso gun habeenkii dhan oo uu fikiraya wuxuu sameeyaa ayuu weynaya arrintii ayaa ku soo noqonaysa asigoo weliba ka qoomameenaya waxyaabaha maanta dhacay kaarka ayuu wataa waa kana kaarka ayuu fiirinaya kadib nin kale ayaa arkaya gun waa lasoo bursanaya waa uu soo cararaya laakiin nasiib wanaag waxaa dhacdaba ninkii meesha ugu imaanayay meesha kafeteriga ahayd ayaa gacanta ku dhigaya gun markaas wuxuu leeyahay shaqadan kusoo bandhigay maxaad ujeeda gun waa la rabaaxaya kadibna gacanta ayaa lagu dhigaya markaas kadibna waa ay jirdilayaan marar badan ayuu cawaadaya ninkiina kaarka ayuu gacanta kusoo qabanaya kaarka ayuu eegaya mar kale kuna ninka ayuu fiirinaya asigoo naxsan maxay taas sababtaasaan igu samaynaysa ayuu leeyahay markaasuu leeyahay shaqadan kusoo bandhigay noloshaada dhan aad ku bedeli karto laakiin adiga maxaad samaysaad ku madax adeegta waxaan oo dhan adigaa ka dambeeyay laakiin ogow aniga hadda adigoo raali aan ahayn ay shaqadan ii qabanaysa ayuu leeyahay gun waa ku madax adeegaya wuxuu leeyahay waxaan aniga raaligayga aanan ahayn marnaba ma samayn karo waa lasoo kaxeynaya waxaa la keenaya madxafkii waxaa jira nin kale ugu weynaa oo madxafkaas uu ka taliya asigana oo ninkan uu ka amar qaato ninkan waa ninka ugu sareeya madxafka kadib ninkii gun waa la horkeenaya markaas ayaa la leeyahay ninkan kuu sheegaya waa kala shaqada ninkan ayaa qabanaya ninkan aad arkaysa waxaa ku jira awood uusan asiga aanan ogan gudihiisa waa inaan ka faa'iidaysana ayuu leeyahay waraa adiga maxaad ku diiday inaad anaga nala shaqayso wax walba anaga arabna aad noo samayso kadibna adiga lacag in kugu filan ayaan ku siinaynaa hawl walba anaga arabna aad noo qabanaysaa lacag ayaan ku siinaynaa
fursaddan ayaan ka faa'iidaysanayna adigan fursad ayay ku tahay waa inaad ka faa'iidaysataa gun waa uu ku madax adeegaya mar labaad ayaan kugu soo celinaya ayaa la leeyahay lacag ayaan ku siinaynaa hawshan aad noo qabanaysaa adigoona ka qoomameynin waxaan rabnaa inaad arrintaad noo samayso weliba maskaxdaadu degan waa inaad ka fikirtaa gun waxaa soo wajahaysa cabsi badan weliba asigoo maskaxdiisa marar badan ka shaqaynaya oo isleh ugu kalif waxyaabahan xun inaad samayso ama maalintii ninkan muxuu kaa soo doonay oo kafeteriga kugu yimid gabar ay halkaan ugu imaanayso gabar halkaan ugu imaanaysan gabar kale maahan waa gabadhii aydan ruuxaanada ahayd oo iidan gudaheeda wax ku jira ninkan aad arkaysana waa gun gabadha ayaa ku leh wax walba adiga aad u baahanta ama caawinaad ha noqoto anigaa diyaar kula anaga kuula qabanaya hawsha anaana kula joogo wax kasta anigaa kuu samaynaya gun gabadhii waa uu la yaabayaa sababtoo ah wuxuu isleeyahay gabadhan maxay tahay sababtay kugu soo dhawaanayso dadkan waxay rabaan inay ayaga baabi'iyaan runtii gabadha in marar badan ayaa dhacday in ayadu dad fara badan ama rag fara badan sidaan oo kale ay ku samaysay arrinta noocan oo kale ah gun gabadhii waa uu ka qoomamaynaya markaas kadibna wuxuu leeyahay may aniga tan ma aqbali karo aydan waxay leedahay maskaxdaadu degan waana arrintan aad ka fiirsataan tahay inaad ka dhuwisha looma baahna anigaa jooga wax kastoo adiga aad doonaysana anigaa kuu samaynaya tahay inaad ka murugooto adiga looma baahna ayay leedahay way ku dhiirigelinaysaa wax kastoo inuu qaban karo waxayna ku leedahay waxaana wax yaroo iska iisa waad samayn kartaa wan waa inaad samayn karto keliya waxay kaaga baahan tahay inay naftaada ka go'naato asigana wuxuu leeyahay maya ilaa had waa uu ka diidan yahay ayada wax kasta ayay u sheegtay laakiin asaga midaas waa uu ka qaadan la'yahay ugu dambayntii waxaa dhacday gun in uu ka aqbalo gabadhii heshiiskay u soo bandhigtay waa uu soo dhaqaaqayaa wuxuuna soo aadayaa dhankii madxabka wuxuu arkayaa meeshii uu suran dareeskii arooska kadib wuxuu arkayaa mashiinkii wuxuuna imaanayaa bahalkii sanamka ahaa kadibna wuxuu damcayaa si toosa inuu dhankiisa inuu soo aado waa uu soo fiirinaya markuu soo eegana waa uu soo aadaya markuu soo aado si toosa asigoona ka qoomameynaynin weliba si wanaagsan u fiirinayo oo rabo haddana in uu taabto gacanta ayuu la soo aadaya gacanta markuu la soo aaday kadibna waxaa dhacday in asigoo raba si lama filaana inuu ku taabto in holkaas inuu yimaado mas-uulkii madxabkii markaas mas-uulka ahaa gacanta ayuu ka qabanaya maxaad samaynaysa ayuu ku leeyahay waxyaabaha lagu ceeramaad u malaysaa markaasuu leeyahay waxaan rabay inaan tista aan sameeyo ama inaan tijaaba ka qaado saan u ogaado shaqada aan qabanayo ama waxaan wuxuu yahay waxay yihiin ama sirta ku duugan madxabkan kadib geedkii ayaan dhah kala furaya shaydaankii ninkii gunaha indhiis waa isbedelayaan dareenkiis waa isbedelaya sidii ayuu ku noqonayaa asigana ruuxaantii meesha ku jirtay mas ayaa meeshii ka soo baxaya waa uu yaabayaa isbeddelkan weyn oo asiga ku yimid waa uu la yaaban yahay noloshan nolol ku cusub waaye weligiisa mausan isku arkin waxyaabahan oo kale xaqiiqatan ninkan markii uu maalintii uu kafeteriga imaanaya ninkan uu kaarka meesha u saarayay maalintaas ayuu asiga noloshiisa oo dhan ay baaba'day kadibna waa uu suuxayaa wuu qabanaya markuu qabto dhegtiisa dhiig ayaa ka soo daadanaya waa uu fiirinaya haddana dhiiggadana wuu noqonaya wuu la yaabaya geedka ayuu fiirinaya kadibna meesha ayuu ku baaba'aya ruuxanta meesha ku jirta ruuxaan kale maaha waa gabadhii waa isla gabadhii oo ninkan uu guursanaya markii hore filimka bilowgiisa aad ku soo daawateen daawadayaal markaas kadibna sheekadiina si toosaan ugu gudagalaynaa waxaa dhacday haddana in uu booskii meesha u yimaado markaas kadib waa uu la yaabay arrinta meesha ka jirta ama waxyaabaha meesha ka socda booskii arrintan wuxuu leeyahay non possible macquul ma ahan computerkii ayuu soo qaadanaya waa uu eegaya waa fiirinaya arrintuu dabagalaya wax walba wuxuu leeyahay wax uu available ma aha kadib waatana gabadhii ruuxaanada ahayd meesha imaanaysa wax walba way dabayn leerkii meesha ka shidnaa computerkii wax kasta gabadhiina waxay si toos u aadaysaa halkii ay ka timid markeeda hore kadibna booskii waa kana halkan ayuu imaanaya weliba tilmaamo asigoo tilmaamaya oo tusinaya gun waa uu suuxsan yahay ninkan wuu la yaaban yahay wuxuu sameeya ayuu la'yahay amaba qaabku asig kusoo istaajiya ayuu la'yahay kadibna waa uu fikiraya waa uu soo dhaqaaqaya markuu soo dhaqaaqa kadibna gun ayuu eegaya gun markuu eega kadibna wuu kasoo tegaya markuu kasoo tagana halkan ayuu soo galaya weliba asigoo isla yaaban waxyaabo uu sameynayo kadibna wuxuu arkayaa ruuxantii meesha taagan waa la yaabaya ninkan booskan wuu soo kacaya markuu soo kaco qolkan ayuu soo gargaraacaya balse nasiibna wax ka furaya ma lahan baalka ayuu qabanaya kaamirada ayuu fiirinaya markaas ayuu leeyahay macquul maa ruuxantii ayaa guriga ku jirto gadaashaad ayay taagan tahay gun wuxuu la yaabaya adduunyadan kale cusub oo dhexda uu kaga joogo meel kale ayuu imaanaya meel kale markuu yimaado asagoo la yaaban meeshuu taagan yahay oo haddana ninkan si lama filaan ayuu arkaya wax kasta ninkan kaamirada ayuu ka arkaya laakiin ninkan wax walba gudihiisa ku jiro maaha wuxuu asiga fahmi karo ninkan gun la yiri haddana waa nin awoodiisa ay sarayso gudihiisana ku dhex nool shaydaan aad u weyn ruuxaan ayaa ku jirta ruuxaantaan oo ah midkii dhammaan madxafka noloshiisa oo dhan bedeli lahayd dadka guriga ku nool dhammaan bedeli lahayd dadkana waxay rabaan ninkan islaan ayaga shaqaale caadi ah ay u kanstaan inay ayaga ugu shaqaystaan laakiin waxay arkeen arrintii arrin ka duwan oo ayaga fitax iyo layaab inta bala noqotay gun waa kana waa u soo dhaqaaqaya markay halkan yimaadaan keebadkii ayaa isgaraacaya kadibna warqad ayuu soo tuufaya warqad markuu soo tuufo warqad u akhrinaya warqadaas ku qoran haddii aad rabtid inaan aniga mar walba xiriir kula sameeyo ama adiga aan kugu soo dhawaado waa inaad marka hore aad samaysaa
waxyaaba aniga farxad gelinayo si aniga aan kugu shaqeeyo ama waxyaaba adiga adduunsa u san hortiis ayuu maraya hortiis markay marto ruuxantii waa uu la yaabaya gun waa uu qeylaya markuu qeyliyo kadib ninkan wuxuu leeyahay waxyaaba dhici kara macquul maahan booska waa imaanaya gacanta ayuu gamaya maya suurtagal ma shid ayuu leeyahay gun wuu la yaabay markaas wuxuu leeyahay maxaa kugu dhacday maxaad la oynaysaa ninkan booska wuxuu la yaaban yahay ninkan guriga markuu yimid masiibada u imaaday gun wuxuu la yaaban yahay markuu halkan imaaday asagana masiibada u timid booska waa uu ku qoomameenaya gun wuxuu leeyahay maxaa taa adiga sababta aad u dooratay aniga inaan kula shaqeeyo aniga ma aqaan ayuu leeyahay laakiin si lama filaan ayay ku dhacday arrintan markaas ayuu leeyahay wax baa jira qasrigan ka qaldan gabadhii way xasuusanaysaa arrinta lagu sameeyey kadibna sheekada ayaa dib loo baxaya kadibna gabadhii wiilka ayuu fiirinaya markaas kadib wuxuu leeyahay waxbaa qaldan arrinta meeshan ka socotana maahan arrinaan aqbali karo waayo isbedelun ayaan ku arkay kadibna ruuxantii ayaa halkaas soo jabaysa waa kana asigii gabadhii way isla soo kacayaan kadibna ruuxantii mar labaad ayay imaanayaan markay imaadeen kadib waa ugu sheekeynayaan wuxuu leeyahay saan ayaa arkay gabadhii markaas kadib wiilka ayay soo eegaysaa markay soo eegtana waa ay kala gabaysaa markay kala turtana asiga ayay eegaysaa markay fiirsan gabadhii waxay ku leedahay maxay tahay farqiga ani adiga noo dhexeeya maxaase labadeena isku awooda naga dhigay gabadhii marar badan ayay wax u sheegaysaa wax badan ayay kaga hadlaysaa laakiin asaga ma ahan mid uu fahmi karo amaba arrintan arrin uu asaga garan kara laakiin ayada wax kasta way fahamsan tahay waana adeecsan tahay gabadhaana waa gabadhii ayada uu asaga doortay oo weliba si qurux badan oo asaga u doortay uu rabo inuu guursado mustaqbalkeedna uu kaga dhigto uu rabo inuu mar walba u soo dhawaado marka loo sheego afka ayuu qabsanaya arrinteeda lama filaan ayay ku noqonaysaa gabadhaana gabadha ruuxaana markaas waa uu soo baxaya markaas kadib qolka ayuu ugu imaanaya markuu imaan wejig ayuu ka furaya markaas ayuu leeyahay macquul maatan waxaan aamini karaa ma afka ayuu qabsanaya waa uu ku farxaya arrintii markaas kadib wuxuu leeyahay macquul ma noqonayso gun waa uu soo baxaya markaas kadib halkaan uu imaanaya ninkii booska ayaa kala tuuraya markuu kala tuurana ruuxaanada ayaa kor u qaadaysa gunka kor ayaa loo qaadaya markii kor loo qaaday kadibna ninkii waa uu la yaabaya usha ayuu wareejinaya kadibna ninkan ninkiisa ayuu soo eegaya markuu soo eegana wuxuu ku leeyahay maxaa waa waxyaaba adiga aad samaynayso dhulka ayay ku dhacayaan dhulka markay ku dhacaan kadib waxaa dhacda si toosa inuu soo istaago markuu soo istaagana gun ninkiisa ayuu soo aadaya gunna arrintii waa uu la yaaban yahay kadibna gun dhankan ayuu fiirinaya gun qoorta ayuu haystaa gabadha ayaa dhankan usoo jeesanaysa marka dhankan usoo jeesatan ayaga ayay eegaysaa markay eegtana kadib dhankiisa ayay soo aagaysaa gabadhii waa oynaysaa way ilmeynaysaa in badan kadibna dhankiisa ayay soo aadaysaa ruuxaantii gun halkaas ayay ku baaba'aysaa markay ku baaba'da kadibna dhankan ayaa la soo aadaya marka dhankan la soo aadana kadib sheekadii ayaa halkaas haddana lasugu soo noqonaya wejiga kale markaas waxay ku leedahay qisadana waa sidaa tan ayay u dhacday waxyaabaha ani adiga mar walba isku kasoo jiidaya amaba labadeena isugu soo dhawaaneen waa sababtan kolley hadda wax walba xaqiiqata waa ogaatay laakiin hadda waxaa kuu muuqda maxaase kuwa cad kadib waxay arkaysaa meelay ku qoranta john markay aragto ay ku qoran tahay way soo eegaysaa markay soo eegto nalkii ayaa dimaya kadibna leer gaduud ayaa daarmaya meesha ayaa lagu kala cararaya marka lagu kala cararo gacanta ayuu qabsanaya gacanta markuu qabsado gun gacanta ayuu haystaa xasuus ayuu galaya kadibna mas ayaa cunaya maska markuu cuno afka ayuu kala fiidaya sida ayuu masku noqonaya ninkaana waad ku mahadsan tahay bilowgii dhammaad haddaad nala joogtay mahadsanidin